madax dhaqameedka waxgaradka dhalinyarada iyo odayaasha beesha Saacad Yunis ee gobolka Sanaag oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay gudaha magaalada Ceerigaabo ayaa ugu horeyn beeniyay isla markaasina gaashaanka u daruuray hadallo ka soo yeeray madax dhaqameed iyo shakhsiyaad maalintii shalay kulan saxaafadeed ku qabtay magaalada Ceerigaabo oo sheegay in ay metelaan beeshaasi kadib kulan been abuur ah oo ay sheegeen inay la qaateen waxayna madax dhaqameedka iyo odayaasha beesha Saacad Yunis sheegeen in aanay jirin goob ay ku wakiisheen isla markaasina ay ku kulmeen shakhsiyaadkaasi waxayna geesta kala sheegeen in ay taageersan yihiin shirkii deegaanka goof ee dhowaan uga soo xidhmay beelaha garxajis bari ee qodobada laga soo saaray ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maxamed jaamac xasan daaday oo halkaasi ka sheegay haddii aanu nahay odayaasha waxgaradka iyo dhalinyarada beesha Saacad Yunis ee gobolka Sanaag waxaanu halkan maanta isugu nimi in aanu mowqifka aanu ka taagannahay ka cadayno war saxaafadeed ka baxay shalayto magaalada Ceerigaabo oo aanu u aragnay warkaasi inuu madmadow badan iyo been abuur badani uu ku jiray sidaa darteed waxaanu maanta halka ka cadaynaynaa arrintaa wixii aanu ka qabno haddaanu nahay meel kasta aanu joogno Yunis Ismaaciil waxaanu ummadda Soomaaliland ku nool iyo ummadda muslimka ah ee geeska ku nool baa u cadaynaynaa war saxaafadeedkii shalay halkaa ka baxay inaanu ahayn mid annagana lagu metelayo ama aanu cid ugu soo dhiibanay in cid inagu metasho qodobka labaad waxay beeshu cadaynaysaa inay beesha go'aankeedu yahay go'aankii ka soo baxay goof oo ay ku kulmeen beesha garxajis bari oo wax badan lagu lafaguray waxaanu cadaynaynaa inuu mowqifka iyagu yahay shirka go'aankii ka soo baxay ee laga akhriyay annagoo Saacad Yunis umaanaan wakiilan cid inay cid inagu metasho cidaanaan wakiilan war saxaafadeedkii Ceerigaabo shalay ka baxay ee ahaa annaga wakiilna ka ah metelana waxaanu cadaynaynaa inaanaan cidna u wakiilan inay cid inagu metasho been abuurna uu ahaa annagu waxaanu nahay qabiil codkoodana leh hadalkooda leh wixii ay doonayaanna yeelaya wixii ay diidayaanna yeelaya wixii aanu tolka kale ee garxajis bari la leenahayna annaga ayay noo taallaa cidda aanu markaa wakiil uga dhiganayno waxaanu caddaynaynaa oo kale ka maqannahay inaan cidina nagu meteli karin oo aan ka maqnayn Ceerigaabo in la yidhaahdo way maqan yihiinna waxaan u maleynayaa inay arrintaasi tahay arrin meel ka dhaca madax dhaqameedka waxgaradka iyo odayaashani waxay maamulka shirkadda Asli Maydi uga digeen arrimo ay sheegeen inay faraha kula jirto waxaan kale oo doonayaa fariin halkan inaan uga diro shirkadda la magac baxday Asli Maydi waxaan leeyahay shirkadda la magac baxday cid kasta hal ahaato cid kasta ha maamusho haddaanu nahay beesha Saacad Yunis waxbaanu ka tirsanaynaa xumaato badan baanu ka tirsanaynaa waxaanu leenahay cidda shirkadda leh ama cidda maamulaysa wixii hore xumaan dambe ha ku darin cid kasta oo aanan heshiis ama hadal ama xumaani aanayna dhexoolin in waxna kala gaadhaan ma jecelin dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka iyaga waxaanu u cadaynaynaa mar dambe inuu yahay go'aanka qof ku go'naa isagaana aanu ka mid nahay aanu oran lahayn iyo wixii hore aanu damacsanayn iyo waxaanu hadda meesha ka leenahayna waxay ku dhan tahay dhammaan sidaa uu sheegay oday maxamed ayay ku urursan tahay beeshu go'aankeedu wuxuu ku gowracan yahay oo ku go'an yahay go'aankii ka soo baxay goof kaasoo ay ku kulmeen dhammaan garxajis bari oo dhani waxay odayaashan iyo madax dhaqameedkani ka jawaabeen hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo ka dhashay qodobadii laga soo saaray deegaanka goof ee gobolka Sanaag hadallada badina waxa ku jirta cabasho waa cabanayaan beesha Saacad Yunis ma cabanayno annagu kaasi waa qodob tan labaad waxaanu ka hadlaynaa wasiirka iyaga garxajis bari ee xalay hadlay wasiir laba ujeedo baanu kala fahmi weyne
ma waxaanad maqal garxajis bari mise waxaanad maqal bari garxajis baanad maqal mise bari baanad maqal labadaasaanu kala saari weynay labadaan noo kala cadday Star TV magaalada Cerigaba.